munaasabadan uu xilka kula wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka qabsoontay dhismaha wasaaraddaasi ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidamada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka qaar ka mid ah maayarada iyo barasaabada dalka madax dhaqameed saraakiil ka socday hay'adaha caalamiga iyo marsharaf kale ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon isagoo ka xog waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay sidii loo sheegay halka kan hawlo waaweyn baanu horumar ah ayaanu qabanay iyadoo waxa soo dhibaatay ay jireen dhaqaale la'aan jirtay barakac nagu dhacay dagaal qabiil iyo anagoo la san weyn oo fariisan weynay ay nagu dhacday oo kala joojiyay kala qabti ku jiray haddana waxa qabaa mashaariic waaweyn oo kuwa ugu muhiimsanaa hawlihii caadiga ahaa ee ama ay goboladu qabanayeen ama ay maxay degmooyinku qabanayeen ama wasaaraddu ay u xil saaray sida nabadgelyada iyadoo caadi noogu socdaan ayaan qabaa inaanu hawlo badan oo kale oo aanu qabanay oo muhiim ah wasiir ku xigeenkii hore arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaraddaasi taliyaha ciidamada bilayska xildhibaano maayirka magaalada Cerigabo barasaabka gobolka Togdheer madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay kuwaas oo soo dhaweeyay wasiirka cusub kii horena sii sagootiyay waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaan garbahaaga taagnaano oo kula shaqeyno ballan qaadaynaa inaan si fiican ula shaqeyno muddadaan xilka sii joogno iyadoo kulay rag badan warwarhayo halkan uu fadhiyo ninkii la oran jiray barasaabkii gobolka Sanaag iyo rag badan oo la mid ah inaan lagu daayne laftigayga degdeg naloo magacaabo ayaa wasiirku sheegay hadii kala shaqo soconayso Maxamed Kaahin halkan uu yimid Allah fuudayo ugu dambeyn wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo halkaasi xilkaasi kula wareegay waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu awood saari doono muddada uu xilka hayo raayiyadeennuna waynu kala duwanaan karnaa barnaamijyadeena siyaasiga iyo axyaabta siyaasigaana waynu kala duwanaan karnaa laakiin waxaynu ka midaysnaan karnaa waxa guud ee danta qaranka aynu leenahay kaliya waxaynu u baahannahay cuqaash iyo salaadiinta iyo marka degmooyinka la joogo iyo marka gobolada la joogo iyo marka heerka qaranka la joogo wasaaraddan iyo ciidankan biliisku waxay ka shaqeeyaan waa amniga iyo nidaamka waxaynu u baahanahay markaa dadkeenana inaynu amnigii barno xasiloonida iyo law and order-kana inaynu ka shaqeyno laakiin kii kasta ee wax kharibay ee dambi galay haddii caaqil iyo sultaan ay daba taagnaado oo yidhaahdaan soo daaya oo meeyarkii nafta u keenaan kii cashuurta diiday meeyarkii qarankuna wuxuu ka rabaa anigoo wasaaradda imika lay dhiibana aan ka rabaa yaasiinna shalayta uu ka rabay meeyarka baysteynada iyo caanteynada ururinaya waxaa ka rabtaan inuu horumar idiin sameeyo waxaa laga rabaa inuu caafimaadka inuu qayb ka qaato waxa laga rabaa nabadgelyada inuu qayb ka qaato haddii kii cashuurta ururinaya aynu ugu taag weynoo dabadeedna aynu cunaha ku hayno damiyay noo soconaysaa wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxa uu ku dhashay magaalada Burco tuulada Beer ayuu dugsiga hoose dhexe ka galay waxaana uu markii dambe ka baxay dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco sanadkii 1970 ayaa waxa loo diray wadanka Ruushka waxaana uu soo bartay tababar la xiriira ciidamada sanadkii 1973 ayuu dalka dib ugu soo laabtay waxaana uu kamid ahaa saraakiishii gashay dagaalkii u dhaxeeyay Soomaalida iyo Itoobiya sanadkii 1977 waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii dib u xoreynta Soomaaliland isagoo kamid ahaa raggii qaybta weyn ka qaatay dhismaha qaranka waxaana uu noqday wasiirkii ugu horeeyay ee gaashaandhigga Soomaaliland ee xukuumadda Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur Allah u naxariistee Maxamed Kaahin Axmed sidoo kale waxa uu kamid ahaa raggii aasaasay urur siyaasadeedkii Asad isagoo markii dambana ku biiray xisbiga Kulmiye oo afayeen ka noqday Maxamed Kaahin Axmed waxa uu kaligii ka nool yahay afartii sarkaal ee ugu horeeyay ee jabhadii SNM ee u talaaba wadanka Itoobiya waxaana uu hadda yahay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga Kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana muddo dheer saaxiib ahaayeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xasan Galadhow Cable TV Hargeysa